عبد الله بورله يلا يراها waxaan ku faraxsanahay alxamdulillah ilaahna soo sii daayay annaga oo caafimaad qabna xorriyadiina noo soo celiyay alxamdulillah waan leeyahay waxa kale oo mahad celinaynaa dhammaan dadka yagii nagu soo booqanaya xafiiska iyo askartana haysay iyo inta uu mahad celinaynaa waxa kale oo mahad celinaynaa dadkii ka shaqeeyay sii daynta iyadana waan mahad celinaynaa aad iyo aad badmaadsantii sideentiina ma malaynaysaa markaa in xiisadii la idin soo xirxiray ay ku dhamaan karayso haddii la idin soo sii daayay hay waa waqti kale بسم الله الرحمن الرحيم يا بالمحسنين مركه hore mar labaad waxaan u mahadnaqayaa wasiirka salaadiinta dhan walba ee arrintan u guntiray runtii dad walaalo ah inay hawshooda galaan halkeedii ay ku soo celiyaan dhagaxan yar la dhaqaajin halka lagu soo celiyo nabadda waan lagu wada leeyahay runtii cid gaar ah maaha wasiirka waxa uu dawladda ka riixaysa mas'uuliyadda saaran ayaa dawladda ka riixaysa xaalad xilliga soo galay waan ogeyn waan ku mahadsan yahay ilaahayna waa u fududeeyay qof walbana inta ka geysay uu ku mahadsan yahay imika waxaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo arrintu waa iska kooban tahay kusimaha barasaabka gobolka awdal cabdinuur sugaal si uu ugu soo dhaweeyo wasiirka oo inoo soo gunaanada hadalkii dardaaran halkan looga baahnaana ku oran doona meesha hadduu ilaahay dhaahdo ku soo dhaweeyo cabdinuur sugaal bismillaahi raxmaani raxiim wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maayarka degmada taliyaha nabad sugidda taliyaha jeelka xogayaha gobolka xildhibaanada bahda saxaafadda salaadiinta xidhnadeena soo daaya madaxweynaha iyo salaadiintii soo dhaweysay soo dhamaysay arrinta xariirad dhibaatada xariirad ka dhacday soo wadaysay odayaasha waxa weeyaan dhibtaa dhacday waxa dib aad u foolxun oo dhimashaa muddo dhowr iyo 60 cisho ama 70 cisho waa xidhnaydeen 80 cisho waxa loo baahan yahay kubadda xaggiina u soo wareegtay maanta sababta dadaalka wasiirkiina horin doona kubadda xaggiina u soo wareegtay ninka dhagarqabaha waxa lagu yaqaanay ama reerka dhigarooda inuu dhulka dhigo arrinta oo mar walba isagu xagga jilicsan oo walaalka baryo oo walaal waxa laga qabo ama walaal waxa laga qaado yiraahdo waxa la indiga baahan yahay dadaalka wasiirkiina yiraahdo iyo hadalka wasiirkiina yiraahdo inaad si fiican u qaadataan waxa la isku raacay beesha xariirad dhinaca caysaha inuu rayadii jiray ee wax ka qaban kari lahay adimiga tiin sidaa darteed maanta xabsigii baa laga soo saaray waxaan ugu dardaarayaa dardaaranka wasiirka inaad sidiisa u qaadataan wixii laynagu dardaarana aad fulisaan kuwa soo dhow saacad wasiir بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام يا odayaasha intii muddada dheer xidhnaa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرق دبي ميدان حدناي حرق نبدأ بحدناي حرق دبي ميدان حدناي نودو حميدان لكن حرق نبدأ بحدناي دانو وحن كوبا تشيني بلا كلام ماشي كذا أيام كوبا تشيني وايو نك وحلو جيستو هدانا عن كل له كيني نون هاي والله كي وحكون جيستي نبدأ سيد كليه كل شيء كريه وحويه عدي وحكيستي إنان دين كلا أو كفكش مركوان يدين كلا وانا يدين كلا نهتان الحكومة دين هاي نبض بين الموجيسي وحريرة إلى هاي ومهضنا يدلكي خدعي دين دمك مدين حايل أنا خير هبي نمدن بيه أيام كسو أيام كي كنت حقي عيسى لما بيرد بدي أحكي لجارين ولا لا أنت أحد نايدين حاجتي عدو منها سديت كابينا أحد نايدين حاجتي أحد نايدين إن الله هاي عدو منها كانوا شيء يقعد داوين مدحين غيركي وحقاري عيسى توعد كعدي غيركي عدو السلام عليكم مركا قوشي أنا مدعين قاعد كينا ولا ما حريدين مركا أنا كينا مدعو هل كينا إذا كسر حري سيدي سيبويا
حرقين رعيدي كما تبين مرات قفت الصوت وقديين لكن كدبين الشاب الرسمي وأول أرن بروح لنتي نترو سلام وقف الفراعنة حق غير كيني كما يبقى الوالدي شيء لا غدا اسمه ده مدعي مركان نبدي يوشيسكي وأدل دلاهين إذن نوع حكنا إذا مركي أرن كاسم نوع مغضي الله خير هسي وحا ربنا أيها سحر صاري وتلاقوين كري مركا waxay noqotay deena nabadiina aanay deesidin ku bogsaneen xalinkiina aan wax la taray marka waxa khasab noqotay in beeshi kale aad wax gaareen aan mar kale dadii nabadii ka goobno iyadii hadaba nabadii laga doono laakiin waxa nabad goobista lahaa diintii wax geystay Soomaa markii xajjo wax soo dhaqaaqan waayay idina aan idin xidhnay cid dambe oo soo dhaqaaqan waayay halkii wuxuu noqday warbabeeshii wax gaareen haddana mar kale nabadii ka doono marka iyadii baan wada hadallo iyo fadhiyo iyo isxirsaarba aan qaraar qaban ilaahay waa mahad weynaya xala xariiradii ugu dambayso aad baan ugu hambalyeynaya way yeeleen waa iyagii halkan joogay ka bilow ilaa odayadii goobtii wax yaaleen joogay si gobonnimo abay iga yeeleen in laydin soo daayo oo soo deyntu waa maxay inaan daydu ku sii dhex daayo maaha in si nabada dee deegaankii aad u tagtaan baa muhiim oo sii deyntu sii deyn nabad dhasha ay noqoto aad baan ugu mahadnaqayaa wayga ogolaadeen waan ula tashanay geed kastana waa u guuraynay annana nabadgelyada halkan aan ka guday halkan aan odayaashii waxgaradkii kula kulmay waxay noqotay goobtiina inaanu tagno ilaahna waafajiyey baa mahad haddii nabadgelyada aanu halkan raggii aanu ku wada hadalnay aanu ku eedeyn lahayn sii deynta xariira tagtaan waxba may tarteen wallahi nabadna waxba may tarteen laakiin ilaahna waafajiyey inaanu anagu mas-uuliyiintii qaranka ah aanu xariira tagno ayaan aad ugu mahadnaqay xariiradna ilaa xalay ilaa baanu wada hadlaynay waqti dambe baanu go-aan nabada isla qaaday marka maxaa soo ururaya halkaynu joognaa maanta waa halkaa waxaa ciise ka soo ururtay mabaanaan dhalboomaana kicino indhii baa naga xidhay dee haddii indhii ninkii xidhnaa noqday indhihii baa masaakaati dee markaa indhihii nabadaati indhihii yargeyn lahabaati indhihii wax kala guri lahabaati ilaa waxay dhahaan ciise indhii baa naga xidheen markaa maadnaan dhaqaaqin bay deyna go-aanku saasuna dee haddaa indhihii noqoteen wax kastaa haydin gaaraan indho khayr la noqda indhihii nabadda noqda indhihii wax kala guri lahaa noqda indhihii yargeyn lahaa noqda indhihii dee hawshii dildilayd imika furfuri lahaa ee gacan weyn lahaa baa laydinka rabaa intaan idinka doonayaa waa intaas waa guudo aynu wanaagga iyo warbaahinta ugu talagalnay qodob kalena waa ku daray ilaahay dadka is-agdega ee wada dhashay iyo laba kastoo meel wada jooga ayuu daawooyaa ilaahay baa wada dejiyey ilaahay baa isku xidhay ilaahay baa goobooda geeyey soomaalidu siday waxog isugu xigto ma kala taqaano siday isu xigto ma kala taqaano maalintii laydi soo xidhay waxaa laygu ilahay geysakeen marka nimanka halkan dooraba yimid waxaan ogaaday goobta ugu wanaagsan ee ugu gacalka badan ee dushiinana ka muuqata inay goorama tahay haddaan hargeysiyo goob kale idinku xidho waxaa laga yaabaa qof idinka daba yimaadaba inaan idaan aragto bartaana waxaad dadkii gaarsiisaa waa inta wax isligta ee walaalaha ah ayaa waxna kala gaara ilaa labaan sarag wax kala gaari maayaan haddii wax kala gaarana inta wax wanaajin karta ee isku xiri karta ee walaaloobi kartaana waa yaga xabsiga dee dowlad baa lahayd oo sarkaal bay joogay oo reer male ka hargeysana reer male laakiin xabsi dowladeed buu ahaa ayaa ku xidhnayda laakiin fursadda aa ka hesheen boolaba meel laba kama idaanasheen ehelkiinii dadkiinii dee markaa waxaan idinka doonaya wixii kale gaar baynu oranaynaa halni siiya fursadda uu fariin nabadeed ku gudbinayo fursadda uu dee wixii dhacay ka mahadnaqaayo dabeedna inagaa isku soo hadhayno markaa warbaahinta hal nin siiya ninka idinku بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ساعة المسجد وما صرت عليه وانت قرار ما شاء الله.
وما صنطة كلامه عصيم مع صنطة يقول أنا أنك أقلنا يدي ما نقول عليه جيركم عيني حتى جيركم حدنا فوزوا لا تسمع حدنا وعلى المال بكهنين ينظر بكهنين رأيت لما سوق هذا يروح الله يبغى كمان أنا غير هذا يبغى كمان بكر يا بيا وحنا هلك كده الله وعم هذا السودانكي أنت وتاجر وهذا ما هذا هذه لو حكوا وحوالي اسمه ورنا هذه هذه هي بس تلوات هي بورم رأي دمر بوم ما تسيه وحمان هو ندعي اللي مجد وهي دعاية ربي باكر وصل لك الكلام قف ما صمر من الكل هذو صمر يقف هم بنو شيء غير الله كهم قالوا كسمته ما صمر وحصل يوم بعد عوار كده واحد شغال فراي ما هي حرقوا كده ما هو حيان بلده وحيان ما هو حجان حرقوا وحيان ينا ما هي قلنا تيا سوق مني وما نهاف اللو قالوا حيان ونك أفج علينا كو أهل كريم وحنا يقالين دبنا ملاهي ما دبنا ملاهي لكن سوى بصير هي وحنا يسجع بعض النفس إني يقفل الله بين دير بلا ندور الله بعض مقال نريد نبدأ واحد أهلا نسوي ترى ما نحكي له نسوي سجع الله وقف له وقدر مال سجع لي دم من ما هو بصير هي ذيك ها وارتلد هي يبي أنا ما نسوي لما أنا بس بنتي قدر الله وكرر له هلك مكان أنك قدر الله قدر لي المسلمين وينك يتعرف عندنا غير وما ما هتصل بقول شيء بقول وين يوم هتصين أقول الله أقول إن كل يجي بعيد كل حلو كذا يدك يجي بعيد يقول شو تعال يجي بعيد سلام عليكم تاسع يوم بعد